salaama madal kale iyo mar kale YouTube-keeni Qisology maanta waxaan ku bilaaweynaa waxa loo yaqaano to be or not to be, that is the question. kelmadda halka aan soo qaatay waxay nin loo yaqaano William Shakespeare wuxuu ahaa qarniyadii hore tegay dadkii loo daba fadhiisan jiray mahmaayaha xikmadaha waxyaabo lamida laakiin san nuxurka hadalkan isaga ma aha ka hadalkiisa ama adigu wuxuu ahaa daraawigii casrigii hore laakiin ka hadalka ujeedadeenu isaga ma aha laakiin waa inta verb to be meesha ku jirta halka waxaan calaamadeeyay saddex verb to be oo meesha ku jira ina marshaan aad idin sii fahansiiyay verb to be waa basica wax walba marka Ingiriiska la bilaabayo iminka tusaale ahaan halka ugu horeysa waxaad ku aragtaan wax loo yaqaano be wuxuu noqonayaa waa ficil loo yaqaano uu ahaanaya tusaale ahaan yakun Arabiga waxaan isku wadaynaa wax loo yaqaano English si aad isugu fahanto waayo labada ugu dhibka badan weeye iminka verb to be ga saddex qaybood buu qaybsamaa markuu xaaladda present yahay ama mudaaric waa am iyo is iyo are hadaba waxa loo yaqaano tusaalihiisa koobaad hadeen ku tusaaleyna amta waa ana oo u dhigmata ay tusaalahan I am say isu kala qaadanayaan de pronoun-kii tusaalaanka ku xiga waxa weeye waa is wuxuu qaadanayaa he iyo she iyo it oo ah saddexda mufradka marka la joogo pronoun-ka sidoo kale waxa loo yaqaano are oo halka taala hadaan intaan are gaadhin waxa jirta wax loo yaqaano mufrad iyo jamac imika tusaale ahaan inaad pronoun-kii meesha geliso iyo inaad magacii caadiga geliso imika ism mufradka ali is mufradka cat is bay noqonaysaa way hadaba marka loo yimaado are kana waxa loo yaqaano waxa tusaale ahaan you ba ugu horeysa you are waa labo waa nin muqaadaba qura la hadlayo rag badan oo la hadlayo oo muqaadaba tusaale ahaan waxa ku xiga waa we waxay qaadataa waxa loo yaqaano are waxaana ka hadashaa rag mutakallim oo rag naftooda ka hadlaya oo laba iyo wixii ka badan tusaale ahaan naxni waxyaabo lamid they waxay ka hadashaa rag badan dad badan baa laga hadlayaa wuxuuna noqdaa ism ama jamac ama magac qura iyo maarta waxyaabo wax ka badanba litaliskii warbixinada inta ka sii faahfaahsan hore ugu sii socon laakiin ujeedadu waxa weeye inaad fahanto marka hore qaabka iyo structure-ka uu yahay wuxuu qaybsamaa waxa loo yaqaano horta marka hore qaab qoraalku full short wax loo yaqaano iyo si buuxdeen kelmadda loo qoro imika tusaale ahaan iyo in si full short in qaab kooban loo qoro imika his she's waa qaabka loo soo koobiyo qoraal ahaan baan idin soo qoray laakiin qaabka loo soo koobiyo weeye full short waa loo yaqaan mid walba your his she's where there they are bay noqonaysaa adigu waxaan dhan they are we are your laakiin soo koobidid there where your bay noqonaysaa marka loo yimaado adigu full short xaaladaas waa xaaladda positive-ka ama wax la sugayo ee isbaat la imanayo waxa jirta xaalad labaad oo verb to be uu galo oo loo yaqaano negative xaaladda hore si good positive ah xaaladda labaad ee uu galayo waa negative tusaale ahaan ay Ahmed ma noqonayso qoraalka intaan negative ka galin buu tusaale almay ka sibixinay wuxuu leeyahay sida saxda I am Ahmed weey hadii aad doonayso inaad soo koobtana I am Ahmed ba oranaysa laakiin oran maysi he my friend laakiin waxa oranaysa he is my friend marka soo koobisa doonayso inaad koobtana he is my friend they married waa khalad kelmadaas marka aad doonayso inaad soo koobto waxaan they are married xalay markay tahay full markay short tahayna waa they are married oo rt ed baa dabada laga xiraya sidoo kale hadaba xaaladda negative-ka markaan galo waxa weeye qaabka u kala qaadanayaan waa I am not dio balast waa verb-kii iyo waxa loo yaqaano diidmadii I am not ma noqonayso ama not laakiin waxa noqonaysaa markay full tahay I'm not markay short tahayna I'm not markay full tahay istu waa he is not markay gaaban tahayna he isn't markuu sheedu ay dheer tahay waa she is not he isn't it's not he isn't it isn't he is not my friend ma aha saaxiibkay he isn't my friend you are not markuu full shortiga yahay weeye you are not you're not we are not we aren't we are not dhawaqo
dhawaqa way ku kala duwanaan karaan oo dhawaqa in la soo laakiin ujeedadu waxa weeye in they are not iyo they are not in qoraalku bay ku godeen dhawaqii isku mid bay noqon karaan dhawaqana de marka koobi ka they are not qaabkaas aad oran kartaa xaaladaasna waxa xaaladda loo yaqaanayo negative-ka hadaba xaaladda waxa jirta xaalad question yes no waa laga jawaabaya Arabiyan hal baa loo yaqaanayo hal marka laga dhaho lagu su'aasha lagu bilaabo waxay noqonaysaa inaad nacam ama yes tiraahdo ama aha ama maya tusaalahan I am a teacher marka negative aad ka dhigayso waxa istaba marinaysaa verbkii iyo pronounkii tusaalahan aan yarnaadi ku daree amta waxaad horeysiinaysaa waxa loo yaqaano wadweydiinaysaa capital baad ka dhigaysaa I am a teacher sameeyaan marka I am a teacher xarafka ugu horeeyna wadweynaysaa capital baad ka dhigaysaa halka marka hore yaraha am a teacher yes you are what no you aren't matid you are not waxa jirta marka qaar tusaalahan she's from Japan marka loo waxay joogtaa Japan doonaysa inaad bedesho oo yahay waxa idii hore weyneynaysa is she from Japan yes she is not oo marka diidmadii jawaabtii iyo haadii bay taagantahay they are busy marka are they busy yes they are busy no they are not iyagu maaha mashquul qaabka dhigaalka waxa jirta sidoo kale yes taa ugu horeysa marka aad doonayso inaad qaabkaas waa khalad yes she's soo not tilmaamayo waxa jirta qaab hadda doonayso inaad soo koobto waa inaad jumlada horta dheeraysaa laakiin heesnad inta horun baa soo koobaysa hadaba verb to be waxa loo yaqaan saddexdiisa xaaladood marka ka nimaadno waxa jirta xaalado kale oo loo isticmaalo tusaale ahaan laba xaaladood verb to be marka hore waxa loo qaybiyaa laba xaaladood mar baa jirta waa action oo dhacdo dhacaysa iyo state iyo xaalad aad ku sugan tahay xaalad iyo dhacdo tusaale ahaan doctors work in hospital dhakhtarada ka shaqeynaya yani hospitalka gudihiisa iyo we are happy waan faraxsanahay iyo they are eating saddexda for example baan ku tusaaleynaa doctors we are working in hospital marka lagu leeyahay ficil waa action taas ficilkii qaybtii action ku qaatay oo dhakhtarka dhixiisa ay ka shaqeynaya we are happy marka la leeyahayna waa state waa xaalad oo wuxuu ka hadlayaa we are state yani xaalad faraxsanaan imika halka damana they are eating isagu wuxuu kaga duwan yahay eating waa action horta artan ka horeysa noqon maysa state-kii artan meeshan waxay ugu jirtaa waa hal bin verbs wax loo yaqaano oo action kan bay eating kan bay cunintan bay ka caawinaysa yani qaab dhawaqa they are eating inuu qofku wax cunayo yani ujeedada nooc xurka hadalku waxa weeye artan loo keenay horta waa hal bin laakiin in la tusiyo xaaladda lagu jira ama present ba samanka waqtiga ka hadlaysa imika arta waxa loo keenay in la muujiyo meesha inay ku jirto in ficilku simple present yahay oo arta waxa loo qaybiyaa ama adu ficilka waxa loo qaybiyaa main verb iyo helping verb main verb waa xaalad asaas oo marka asaaska laga hadlayo helping verb kuna marka su'aalaha waxyaabo laga caawinayo imika markaad ka hadlayso to talking about marka dhalasho iyo wax ka hadlayso qaabkan baad su'aalahan u hadlaysaa yaro wuxuu tusayaa for example marka dhalasho iyo identity waxa ka hadlayso waxaanaysaa I am Ahmed su'aalahan de way he is my friend Ali kaas waa saaxiibkay we are from Egypt waxaan ka soo jeednaa Masar ujeedada nuxurka hadalku waxa weeye markaad ka hadlayso qaabka identity-ga qaabkaas aad u hadlayso markaad shaqo ka hadlayso to tell about job waxaanaysaa I am not a student I am teacher macallin baan to tell about job way marka iyadoo baasi socoto wuxuu Susan is not a nurse maaha kalkaaliye she is a doctor waa dhakhtar caadi Mark and Sam labadaas are not engineer maaha engineero they are businessmen laakiin waa ganacsataa to talking about age marka ka hadlayso qaabkan weeye tusaale ahaan how old is your son wiilkaagu intuu jira he is 5 years old shan sano jira ta ku xigta to talk about time and date waqtiga markaad ka hadlayso xilli waxaanaysaa what time is it wuxuu ku oranayaa markuu ku joogo it's 3:00 when is the meeting markay tahay maartay kulan oo kalendarka ku jira
is not general kulanku waa 12 January buu ku oranaya to tell about places markaad ka hadlayso meel tilmaam adu place xarun where are Mark and Susan balguri labadan Susan iyo Mark they are ninka naagta walay they are restaurant waxay ku sugan yihiin dalka ujeedada nuxurku waxa weeye qaabka qoraalka loo soo koobiyo jawaabta iyo mar si su'aashu u tahay directionku bahal dheer wixii how's the weather today marka cimilada laga hadlayo is hot and sunny cimiladu aad bay kululta yani qorraxdu aad bay kulushay baa laga hayaa and tusaalayaasha dhan waxa lagu tusaaleynayaa uu noo soo socdaan wax walba taxana fiidiyoya ama casharo ida ka badan may ka hadli doonaa laakiin imiga waxa isku daydaa write the correct form to be verb to be wax loo yaqaan inaad bal saxdo su'aalahan waqti baan ku siinaya tusaalahan iminka su'aalaha kood my letter sister halka verb to be ga waxa galiya to u ka sii dambeeya laakiin ta dotdodka baad gelinaysaa wixii ka maqan adoo isku dayay talabaad waa it dash not call in subprime not that and tag ku galiyay waxa ka turjumaysaa meesha in diidma ku jirto marka diidmadu qaabka qoraysan baad u qoraysaa ee not tan ma ahayn meesha ka tirsantahay on kusi she that marry she that has a single they that dot rich they dot poor I dot not from Italy I dot from Spain and so actually waxa oranaysaa dot bay ku bilowmaysaa you feel this even iyadoo su'aasha question jawaabteedina waxay noqonaysaa yes I dot marka waxaad doonaysaa waxaad kaga jawaabaysaa minino haddii aad qaabka u qortay waan arki doon waa isku dayaysaa dad video qabsataad ka jawaabaysaa markuu inoo dhamaadaan waqtiga yar ee aan ku qabtay momentiga yar su'aasha koobaad waqtiga ku qabtay haddii aad kaga jawaabtay tusaalaan my letter sister haddii aad ka jawaabtay maxay noqotay haddii aad ku qortay is waa saxday my letter sister is two يعني age buu ka hadlayaa walaashayda yar waxay jirtaa da'dii 2 labaad it is not halka not aan ku galiyay imika qaabkay u qormayso baa laga rabay laakiin not waa lagu sii sheegay is not called in subprime she is not married she is single labadii dhinac maarta is not is they are rich they are poor I am ta ku xigta am bay galaysa وانا لكن ديد مو انا not halka hore ku sii dhigay I am not halka dambana I am from Spain Italy kama soo jeedo waxaan ka jeedaa Spanish baan ka soo jeedaa are you free this evening yes I am marka casharku halkaas uu nagu jeego wassalaamu calaykum